السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقيبتي أفراد مشروع على دقالنك نوركا waxaan ka cawday inaanan ku noolaan karin cabsi joogto ah. Baawel waxa uu igu qanciyay oo igu dajiyay in ay dhawaan dalka keeni doonaan ciidamo difaaca danahayaga iyo wakiilada qarsoon ee noo adeega. Waan ku niyad samaaday ballanqaadkaas, ha yeeshee waxaa mar walba ku noolaa cabsi iyo wareer joogto ah. mar kasta oo qof islaamo waxaan dareemi jiray naxdin, sidii inuu og yahay arrimahayga aan faraha kula jiro. qof kasta oo aqoon u leh akhrinta wejiyada ayaa sawirkayga garan karay. si aynan taas u dhicin, indhahayga ma siin jirin cidna. fariin ayaa ii soo dhacday, waxaana lay faray in aan madaarka ka soo qaado gabadhu ma ahan mid ka tirsan ururka, laakiin waxa ay ii sheegeen in ay tahay kuwa taabacsan mabaadi'da aan aaminsanahay. sidii baan yeelay. subaxdii ayaan ka soo qaaday gabadhii xijaabnayd oo ay u muuqato gabar dhowrsoon. waxaa isku kii qaban weyday muuqaalkeeda iyo waxa laygu sheegay. waan ka warsaday sababta ay dalka u timi. waxa ay ii sheegtay inay ka qaybgalayso kulan samafal ah, iyada oo ay soo casumeen hay-ad ka mid ah hay-adda qaramada midoobay. kulankii ayay ka qayb gashay iyada oo aan u fahmay in la doonayo inay hablaha tusaale u noqoto. kulamo hoose ayaa loo sii ballamiyey in ay la qaadato hablo gaar ah. markay hawlaheedii dhammaysatay ayaan habeenkii casho la qaadanay islaan cad oo madax ka ah hay-adda. iyadoo dhaqankeedii beddeshay ayay farxad isku qaabileen. anigu waan daawanayay siday isku jaan qaadeen. waxaase madax wareer ka qaaday oo igu weynaatay waxa afkeeda ka soo baxaya. gabadhii ayadoo islaanta ku leh aan kuu bishaareeyo. islaantii ayaa ku halcelisay iga farxii. waxa ay tidhi ku bishaarayso, hadda kadib jiilka khatar naguma ahan. waxa ay sii raacisay inay runta ka saarayso xogtii laga ururiyey internetka oo caddaynaysa inay kor u kacday ilaa xad dhalinyarada daawata filimaanta xunxun. waxay ku magacowday maroon. waxaan garwaaqsaday in jiilka dhan nuurkooda qalbiga ay madoobaysay daawashada xumaanta iyo sinada lagu faafiyey internetka. Kenya ayaan isku raacnay. subaxii xigtay markay gabadhii Nairobi gaadhay, waxay la soo baxday dhaqan cusub oo ahaa kii aan ku malaysanayay. waxa ay tuurtay maryihii waxaana ay u labisatay sidii hablaha reer galbeedka ah. anigu Nairobi wax badan kuma hakan. waxa aan u sii dhaafay Lisbon oo laygu soo casumay shir qarsoon oo lagaga arrinsanayo siduu u ekaan doono mustaqbalka siyaasadeed ee Soomaaliya. shirkaas waxaan kula kulmay Berga oo ahaa shakhsi gudoominayay howlaha la hayo. waxay isla soo qaateen sida Soomaalida loogu sameyn lahaa nidaam oo sii kordhiya mushaakilaadka ay hadda ka dhex dabaalanayaan. kale waxa istusan inuu federaalku yahay hab aynan ka joojin karin calanka tawxiidka leh reer Somaliland ay saarteen. waxa ay yiraahdeen calankaas ayaanu ka dul dhisaynaa calanka buluugga ah. qole xag jir ah ayaa ka dooday in Soomaalida loo qaado xog ay ku tashato oo gacanta loo geliyo UN-ta ama wadamada jaarka ah. markuu shirkii dhammaaday waxaa la isla qaatay in Soomaaliya loo sameeyo nidaamka federaalka ah oo qas ku salaysan. Berga ayaa si gooni ah iigu sheegay inay meel dhigteen go'aanka ah in Soomaalida laga ilaaliyo in ay Soomaalidu isku maamusho shareecada Islaamka iyo in Soomaalidu yeelato dowlad dhexe oo adag. waa ino iyo qaybta shanaad ee mashruuca la dagaalanka nuurka.